السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ardayda dhammaantiin aad baan idin salaamayaa. Waxaan idiin soo duubayaa casharkiinii vulnerability analysis-ka. Marka maalintii dhow waxaan sameynay inaynu ku soo shubnay barnaamijkiinii OpenFast. markuu halkan yimaado waxaan sameynaynaa inaan login ku sameyno. Marka halkan markaad arkaysaan waxyaabo badan baa yaal. habeenkii dhowda khadka naga yar cuslaaday. marka OpenFast runtii free bounty weeye, waa barnaamijyada aadka ugu fiican marka la joogo scanning-ka. waana tool u baahan in keliya cashar qura laga dhiga maaha inaad idinku daraasiisaan oo aad wax badan loo isticmaali karo. sida aawadeed marka ugu horeysa aad soo gasho waxaa muhiima inaad halkan eegto administration-ka, deedna aad tagto wax loo yaqaano field status. marka waxaa muhiima in update ku yahay OpenFast oo halkan markaysaan version-kii waa ku yaal iyo current. marka hadda ayaan dhiggeliyay qaybtaas, kuwana waqtiyo hore oo ilaa 6 days meelahaas ayaa la update gariyay. marka sida aawadeed waxaa muhiima inaad update haysto barnaamijkani oo aad update garaysa. marka koodhka update-kii waxa waan idiin soo diri doonaa insha Allah. marka waxaad arkaysaa halkan anigu waxaan sameeyey scan fara badan baan sameeyey. marka haddii aan dashboard-kii weeye kan markaasaan loo soo galo oo haddii aan halkan scan tago waxaad arkaysaan in halkan ay yaalaan laba nodoob aan scan gareeyey. marka kani mid waxa weeye IP address computer leeyahay, mid kalena waxa weeye nodoob guud oo aan isticmaalay. sida aawadeed marka aad doonaysaa inaad wax scan garayso waxaad tegaysaa calaamadaha yararka ku yaal, deedna task wizard baan habeenkii dhow tagnay, kadibna markaas aynu gelinay maxay ama waxaad gelinaysaa nodoob aad u baahan tahay ayaad gelinaysaa. marka cid aad u baahan tahay ayaad gelinaysaa. marka haddaad domain waad gelin kartaa, IP address-na waad gelin kartaa. marka haddii tusaale kale dee company weyn ama nodoob weyn aad ku qabato waxaa laga yaabaa dee inuu waqti fara badan kaa qaato ama waxaa laga yaabaa inuu dhowr cisho qaato. marka sida aawadeed halkan waxaan u sameeyey aniga imika markaan kan scan gareynayay markaan kan ku sameeyey malaamidkii wuxuu muday kaana saacad ku dhawaad buuday, kanna wuxuu muday maanaya ilaa badh meelahaas waday. marka waad dareemi kartaan oo waqti fara badan ayuu inaga qaadanaya marka la scan gareynayo. halkan security-ga waad arkaysaan nodoob guud aad buu sareeyaa. computer-ka aan sida gaarka u scan gareeyayna security-giisu isaga laftirkiisu waa high oo vulnerability-giisa ayaa aad u sareeya. marka haddii aan tusaale computer-kan galo aan taabto waxaad arkaysaan halkan information duration of last scan wuxuu qaatay 34 meelahaas u qaatay. marka waad arkaysaan in waxyaabo badan oo ay nodoogan ay waqti fara badan kaa cunayso ama kaa qaadanayso. marka haddii aan ku dirto halkan information-ka waa kan natiijada ka soo baxdayna waa tan. marka vulnerability-ga laba wax baa laga helay. mid waa Microsoft Windows SMBS BIOS, waa net BIOS-ka aan idiin sheegayay ayaa vulnerability-giisu aad u sareeyaa, waliba 99 uu gaarsiisan yahay meelaha qaar. marka haddii aad furto waad arkaysaa net BIOS-ku wuxuu yahay iyo wuxuu qabto. marka affected software OS-ka barnaamijka lagu affect gareeyo waxaa ka mid ah Windows 98 iyo 95 iyo NT-ga iyo 2000 iyo version ka dambeeyay. magaca sida awgeed kan laftirkiisa vulnerability uu leeyahay oo isagana waa la ogaan karaa. marka haddaan hostiga tagno, hostigu yani waxa weeye operating system ku jiro kale waa noocma. marka haddaad aragtaan waa Windows laakiin waxa weeye waa Windows 10 weeye oo kan aan scan gareeyay waa Windows 10. boortiyada aan ka isticmaalay aan ka galay waa labada boorti oo waliba boortiga 445 oo aad u sareeyo. marka waa arkaysaa inuu Windows yahay oo dee banner grabbing buu ku sameynayaa. marka halkan oo kale waxa weeye vulnerability oo soo ururinayo oo information sax ah oo ka siinay. marka product-ga laga helay waxa weeye kuwaas product-gaas oo kale ayaa barnaamijkan hore lagu affect gareeyay. marka tixraac waa ku sameyn kartaa oo system-ka nodooga marka aad scan gareynayso waad ogaan kartaa meelaha uu ka jilicsan yahay ama meelaha uu ka fadhiid ka yahay. sidoo kale waxyaabaha lagu sameyn karo waxaa ka mid ah multiple vulnerabilities-ka Windows Microsoft Windows SMB server. SMB-gu waxa weeye server message block-gi ama simple message block-gi waa qaybta sharing-ka ayaa furan oo waxa weeye vulnerable weeye system-kan. sidoo kale code execution baa lagu sameyn karaa, remote code execution waa lagu geli karaa isagana. marka
halkan xitaa wuxuu kuu dhigayaa barnaamijkan iyo xilligii la sameeyey iyo waxyaabihii iyo meelaha aad ka xalin karto waxaas oo dhan ayuu ku siinayaa. marka si guud waxaad heli kartaa warbixino fara badan haddaad u baahato. haddaan markaa iminka qaybtan tagno nadowga vulnerability toolka, halkan waa aad ku arkaysaan waxyaaba badan oo yaala oo indhihiinu qabanaya. marka sidoo kale waxaan samayn karnaa iminka nadowga guud baan tegi karaa. haddaan nadowga sida guud u tago isagana halkan eega resultiga laga hayo waa waxyaabahaas. marka waxyaabaha severity-gooda u sarreeya kan laftirkiisa waxa weeye SMB-ga ayaa isagana laga hayaa. hostiska waa kan. marka hostiska waxaad arkaysaan in inta lagu sameeyey yihiin 1 2 3 4 5 oo mid yahay routerkan isticmaalayay. marka kuwa aadka u sarreeya waxa kamid ah kaasaa kamid ah oo Microsoft Windows 7 wey. markaan dul geeyo halkan waxay soo qorayaan Service Pack 1 kan kalena Windows 7 weye, kan kalena Windows 7. marka ka aadka ugu sarreeya waa Microsoft Windows 7 weye. portyada laftirkooda iyaga laga isticmaalana waa kuwaas. applicationska inta ugu badan vulnerable-kana waxa kamid ah system uu isticmaalaya routerka Linuxka way. operating system waxa kamid ah kan hoose waa Windows 7 ayuu ka hadlayaa. kaa sarna waad arkaysaan oo nadowga waxaa ku xidhnaa computer Windows 7 oo isaga severity-giisu aad u sarreeyo. marka waad arkaysaan Windows 7 Ultimate weliba Service Pack 1. marka waa nadow guud aan isticmaalay anigu aan doonay inaan ku tijaabiyo bal yani vulnerability-ga ama yani security-ga computeradaas meesha ay taagan yihiin. marka report fara badan waan heli karnaa, waxyaabo badan waan ogaan karnaa. sidoo kale marka waxaad samayn kartaa keliya maaha inaad computer oo qura ku eegto, waxaad samayn kartaa halkan oo kale waxaan leeyahay halkaa markaad tagto domain ayaad gelinaysaa. marka domain geliso nadowga haddii ay waxyaabo badan ku xiran yihiin waad arkaysaan. tusaale kale imika waxaan leeyahay microsoft.com. marka waxaan leeyahay start scan. marka halkan waxaad arkaysaan immediate scan request waa la codsaday. marka waqti bay qaadanaysaa, it take some time bay qaadanaysaa, waa uu raadinayaa marka wuu bilaabaya. markaas sidoo kale hadda waxaan oran karnaa halkan report oo kale wuu ina siin karaa wuxuu report ka hayo oo halkan ayaan reportska fara badan aynu ka heli karnaa nadowgyadii waxyaabaha aan sameynay oo aynu scan ku sameynay. marka kan nadowga guud aan ku sameeyey haddii aan xaggan tago immediate scanka waxyaabaha aan ku sameeyey waxyaabahaas ka mid ah. halkan waxyaaba badan baan ku arkayaa. halkan waxaad arkaysaan consolidation scanning ayuu sameeyey. marka waxyaabo badan ayaa ka ogaanaysaan oo runtii aad u muhiima. haddaan tago vulnerability-gana isagana si guud wuxuu soo dhigayaa vulnerability-ga iyo meeluhu ka jiro iyo qaababka loo adeegsan karo. marka waxyaabo badan ayaad ka ogaan kartaan. imika halkan waa kan network topology-gi. marka network topology-ga aan scan garaynay waa intan. marka device kuwa waxaad arkaysaan in ay qaar aad security-goodu sarreeyay qaarna uu iska yara normal ahaa. marka computerada aad ku security-gu sarreeyay ayaad si gaar ah u sii target garayn kartaa oo nadowga waxaan scan gareeyay nadowga guud aan scan gareeyay intaas oo device ayaa ku xidhnayd oo halkan IP address-yadu yaalaa. marka waxyaabahan scan gareeyay waxaa kamid ah isagana Linux ayaa ku jiray. marka waxaad arkaysaan Linux-ka security-giisu inuu cirka yahay oo halkan waa 0 security way 00 security way. kan kale laftirkiisu waa barnaamijka laftirkiisa aan isticmaalay oo Greenbone-ka oo as operating system ay igu jiraan aniga. marka isaguna security-giisu waxa weeye security-giisu aad buu sareeyaa. marka waxaan kale laakiin waa Windows-yo oo Linux waxaan ognahay inuu ka security badan yahay mar walba Windows-ka. marka qaybo badan waxyaabo badan waa ka ogaan kartaan. halkan operating system-ka ayaad eegi kartaa oo halkan waa kuwan operating system-adii inta operating system nadowga ku xidhan iyo waxyaabaha kale yihiin halkan baad ka sii ogaan kartaa. marka waxyaabo badan baa meeshan ku jira oo aad ogaan kartaan ayaa ku jira. marka xitaa waxyaabaha qaar wax lagu samayn kartaa PostgreSQL baa meelaha qaar ku jira oo computerada qaar vulnerability ahaan looga dhex heli karaa. marka waxyaabo badan waa isticmaali kartaan. barnaamijkan runtii aad buu fiican yahay. waxyaabo badanna waa ka dabageli kartaan idinka laftirkiinuna waa sii baarbaari kartaan oo runtii aad buu muhiim u yahay. waxyaabo badanna waa u isticmaali kartaan.
marka waxaan doonayaa barnaamijkan inaan inahan ku shisheeyo casharkan runtii waa barnaamijkan runtii toolkan aad buu fiican yahay oo war tool very important oo markaad eegtaan vulnerability analysis marka la sameynayo ama vulnerability scanning-ka waa toolasha ugu badan ee la isticmaalo ama la adeegsado marka inahaasaan ku joojinayaa idinkuna sii baara oo siga sii faa'iidaysta barnaamijkan waxyaabo badanna usii adeegsada bal marka haddii aan halkan kusoo noqdo halkan waxaad arkaysaan Microsoft waan ku qabtay laakiin waxa weeye iyada looguma talagelin oo barnaamijkan laftirkiisa ayaa qabanaya oo shirkaddan waa shirkad weyn laakiin nabuuqyo kale baa ku tijaabin kartaan intaasaan ku joojinaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu